baasaboorkaaga waa ku shubeysaa. Baasaboorkaaga waxaa ugu direysaa qaab ah oo cashirka ayuu ku jiraa, oo cashirkan la socda ayuu ku jiraa qaabkan baasaboorka ugu diray. Waana soo habeynaya, waad arki doontaan. Trade-ka ugu horeeyay real account baan ka gelaynaa. Waxaan soo gelayaa browser-ka real account $10 ayaan dhignay. Arday walba saas waa inuu la socdaa. Si binary waan trade gareynaynaa. Lacagta waa soo furanaynaa. Halkan waxaan soo furan doonaa lacagta euro iyo USD. Lacagtan waa favorite-keena ayay ka mid tahay. Halkan waxaa iga taala suuqa $1 amount dhan. Lacagtan haysana waa $10. Account-keena waa real account. Deposit-ki waa soo saxnay. Wax walba waa active way. Practice account kuma shaqeynayno. Waxaan ku shaqeynaynaa real account. Saasaan kugu kala saari doonaa. Waxaan galayaa trade. Continue. Confirm. Trade-kan waxaan faa'iidayaa 70%. Waxaan ka saarayaa $1 ila soco. Mobile-kana waan kaga jiraa ila soco. Mobile-kana trade kala iga socdo oo ah euro iyo USD iyadana. Waa ila socon doontaa. Cashiradan oo fara badan baan ka faa'iideysan doonaa. Hadba tilaabo inaan sii qaadno. Faa'iidada toos hadda waxaa iga go'ay $1 oo account-kayga toos ayuu ugu go'ayaa. Ila soco. Sell buy baan ku galay, sell-na waan ku galayaa. Lacag kale aan ka daba furayaa. Account-ka lacagta ka go'day. Mobile-kan kaga jiraa. Khasaaraha halkaa yimid mobile-kan kaga jiraa. Okay, halkaana faa'iido haday timaado halkaana ku darsoomaysaa. $10 baa noo taalay, $9 baa taala. Marka hadda waxaan dhiganaynaa marka lacagta haday noo soo dhacdo faa'iido toos oo live aan ku jirnaa. Account-kiyo live waa real account maaha demo maaha. Demo ardaydii lagu tababaray way qaateen. Real account sidaan laga faa'iideysan karaa oo profit lagu soo saari karaa. Profit-ka saan ku hela arkaa boqolkiiba halkii $1 70 senti baan faa'iidayaa. As binary baan ugu jiraa suuqa. Baasaboorkaaga waa inuu diyaar yahay mar walba. Baasaboorka hadaad haysan ma gali kartid trade-kani. Baasaboorkaaga waa inuu meel ku yaala oo aad ku dirtaa identify markay ku yiraahdaan hore baasaboorkaaga kaga dir. Sida account-ka loo geliyana waa in siin doonaa isla cashirkan ayuu ku jiraa isna. Okay. Mar alla markaan lacagta faa'iido isla trade kala galayaa. Ila soo amount-iga iga yaalo waa $1 waxaan khasaaray waxaan faa'iideynaa 70 senti. Okay, lacag kala furnayaa markiiba aniga. Lacagta inay dhacdaan sugayaa 5 minutes ama 2 minutes waan ku xirnayaa. Waan yareynayaa. Cashiradan waxaa soo aragteen oo aan demo ku sameynayno iyadoo live ah. Ayaan ku jirnaa $10 halkaan ku shubnay. Oo real account baan ku jirnaa. Waa ka soo gudubnay account-kii ahaa deemaha. Waa ka saar real account. Markaan faa'iidno waxaan ogaanaynaa inay real account ka faa'iidnay. Okay. Arday walba halkaas ka faa'iideysan doonaa real account. Deposit-kan soo dhiganay balance-geena inta ku jirto $9 weey. Kan waa practice account uma baahnin. Live inaan uga faa'iideysanahay ayaan rabnaa Soomaha. Waa ka soo arki doonaa saa uga faa'iidno. Suuqa mobile-na waa kaga jiraa isla hadeer. Computer-kana waa kaga jiraa ila soco. Live aan ugu talagalay candle-ka soo soconaya toos u daawanaysaan. Waa faa'iido rasmi ah iyo khasaare rasmi ah la kulmayo. Inaad daawataan baa loogu talagalay. Haddii khasaare u yimaado si rasmi ah inay noo taabato. Haddii faa'iido noo timaadana si rasmi ah faa'iidada aan u qaadano. Casharadii hore practice ayay ahaayeen. Waana ka soo wada faa'iideysanay. Kan hadda maanta aan ku jirno practice maaha waa live. Live sideen u faa'iidi karnaa. Wixii la taaban karo waa soo xisaabtay lacagta sida loo dhigto waa idin soo cashirkan ay ku dhex jirtaa oo inoo duuban yahay. Hadda ayaan sax hadda ay edit gareynayaa waan soo gelinayaa sida loo soo geliyay lacagta loogu soo shubay. Waxa kale oo arkaysaan habka dhow lacagta faa'iidada aan kala bixi karno. Taasna waan la soo weydiiyay. waxaan isku kiindeynayaa idinka iyo videogii oo socdo sababtoo faa'iidadii waxaa soo aragteen iyadoo aan ka sameynayo demo lacag badan aan gelinayo. Hadda lacag yar baan ku bilaabayaa. Akoonkan waxaan rabaa $1 in la gaarsiiyo.
idinkoo arkay $10 laga bilaabo muddo kooban bil gudaheed $1000 inay ku tagta lacagtaan say ku tegi kartaa waa su-aasha ugu weyn waana muhiim jiddan taas inaan ogaano qof walba wuu la yaabayaa markuu daawado videogan $1000 bil gudaheed lagu rabo lacagta la haystan ay tahay resultiga $10 oo $1 hadda hoos aan u dhacayno haddii aan dhacno haddii aan faa'iidana ay noo koraysa lacagteena halkaan $9 halkaan waxa ka dhigay halkaan si fiican fiirsa $9 waxa ka dhigay $1 baa inta soo dhigtay oo aan trade ku galayaa halkaa door waa laga saaraya halkaan uu yaallaa ama waa khasaare ama faa'iido u dhexeeyaa haddii wax la faa'iido kanay ku darsoomaysaa haddii la khasaarana way ka jarmaysaa $9. suuqa hoos ayuu iila socdaa marka hadduu soo kaco waa arkaya profitka meeshii ahayd guduud bay noqotay guduudka waa khasaaro haddii cagaarka uu iisoo baxana waa faa'iido gamekan saasaan u dheelaynaa 2 minutes baana kaga jirnaa la soco IQ option platformka si fiican inaa ula socotaan ayaan rabaa hadda lacagtayda minus bay saaran tahay haddii la faa'iido waad arki doontaan haddii la khasaarana waad arki doontaan okay tradeka mobilekaaga waa kasoo geli kartaa hadda computer baa kaga jira oo cashirkaan ku duubaya laakiin mobile buu qofkii jecel mobileka kasoo gelaya okay faa'iidadii baa ii bilaabatay oo mar minus buu iga tusinaya halkaas mar cagaar buu iga tusinaya marna guduud mar 70% inaan faa'iidayo marna inaan dhacayo ila soco marka haddaan faa'iido halkaasay ku darsoomaysaa isla caawa ayaa cashirkii oo hadda aan bilownay ayaan ku bilownay faa'iidii khasaare aan u dhexaynaa suuqana ciyaar lacag looga heli maayo in tababar badan la sameeyo mooye wax fara badan oo cashiro oo internetka aan soo gelinay baa daawateen oo ahaa binary optionka oo ku saabsanaa weliba IQ option platformkaasi waxaad daawateen saa usoo faa'iidi karno hadda faa'iidadan idinkoo arkaya ayaa live loo qaadanayaa ama khasaaro toosaa la qaadanayaa labadaa midkood waa injineer maxamed barre iyo cashiradiisii taxanaha ahaa oo miigaanka $10 ayaan koonkan ku shubay oo brokerka waa lacagta ugu yar oo brokerka la dhigto haddaba ila soco lacagta ugu yar $5 hataa waa la dhigan karaa laakiin $10 waa lacagta ugu macquulsan oo la dhigan karo brokerka IQ option $10 waa lacag aada u yar $100 iyo wax ka badan baa la rabaa qofka inuu dhigto lacag kale aan ku shubaynaa oo real iyadana ah waa idin tusin doonaa saan ku shubo hadda marka lacagtan faa'iidada saan u qaato si fiican indhiina ku haya candleskii way shaqaynayaan faa'iidadii bay ii dul saaran tahay fallaarta hadday ka tagtana khasaarihii bay soo koraysaa guud bay noqonaysaa meesha profitka balaaska ah minus wuu isku bedelayaa haddii ay wax yar sii socoto faa'iido way ii dhacaysaa oo faa'iida laakiin live ah faa'iidadii oo ah ma aha oo diimaha ahayd diima akoon waan kasoo gudubnay waxaan ku shaqaynaynaa si live oo really lacag live aan dhiganay oo halkaas naga taal lacagta haddii la waayo waa la waayay haddii la faa'iido waa la faa'iiday faa'iido iyo khasaare amountigaan ku gelaynana waa $1 waayo lacagtan markay lacagta caddaana cash ay tahay ma la dhigi karo lacag fara badan oo hal markaa go-eyso marka $1 baa lagu tijaabiyey suuqani oo ardaydii cashiradanoo la socotay oo aan ahayn oo real account aan ahayn ila socotay hadda waxay arkayaan asoo real account buu suuqa looga faa'iideysanayo akoonkana waxaa la rabaa $10 in la gaarsiiyo see loo gaarsiinaya $10 lacaga waa lacag aada iyo aada u yar $10 see looga dhigayaa waa in jab badan loo maraa wax badan baa loo jabayaa wax badan baa waayo aragnimo laga soo qaatay haddana waayo aragnimo kale ayaa laga sii qaadanayaa
akoonkan live sidee lacag ugu shuban karaa waa inaa haystaa visa card ama master card. Hadda anaga waxaan haysanaa visa card, waan soo salaxnay suuqii si real baan ugu jirnaa macquul ah. waxaan ka mid nahay kuwa suuqa trade gareeya oo macquulka lacag u taalo oo cadaan u taalo ayaan ka mid nahay oo lacagtooda marka lacag badan nooma taal, lacag yar baa noo taal, laakiin waxaan soo galnay dadka trade ka sameeya suuqan oo lacag cadaan ay u taalo oo dollar ah. haddii aan faa'iidno way noo dhacaysaa faa'iidadii, waayo timekeen ayaan ku xiranay waa 2 minutes 5 minutes baan marka hore ku xiranay, haddana 2 minutes baan ku xiranay. suuqa hadduu hadda ila degin selkan ku jiraa hadday ii dhacaysaa marka faa'iidadaasi. iyadoo waxaan soo qaadanay cashiro diima ah, haddana waxaan arkaynaa iyadoo real ah lacagta markaan faa'iidno $9 baa halkaa taalo way ku kordhaysaa. halka dollar sidiisuu nagu olaanaya meeshaan ka ciyaarayna gameka ayuu yaalayaa, halka dollar laga saari maayo. $1 baan ku gelaynaa suuqa mar walba. ka yar lot size waa ka dhigan karnaa anaga $1 baan ugu talagalnay inaan ka saarno ama aan faa'iidno 70 senti ama 90 senti waa ka dhigaynaa. dhawaa badinina waa arki doontaan. horta lacagta ugu horreysay aan galnay weeye, waa trade-ka ugu horreysay, faa'iidada ugu horreysay aan qaadano idinkoo arkayo. ma qaadan doonaa faa'iidadan idinkoo arkayo? waan qaatay faa'iidadaas way ii dhacday. faa'iidaan qaatay oo trade real yaan ka galay, maaha trade-kii IQ option-ka taqaaneen. IQ option-ka oo ahayd waa liyo inaan faa'iidadaas helay, waa la ii ogolaaday. casharkii koowaad aan qaadano 70.7 halka dollar wuxuu ii yaalaa, waxaan faa'iiday 70 senti oo kaliya. 70 senti waa 20 iyo xoogaa shilin Soomaali haddaa hadda fasirtaan 70 senti meeqay noqonaysaa? 25 kun oo faa'iida. marka waxay noqonaysaa akoonkan realiga ah $10 baan ku furnay, $10.7 $1 baa naga yahay $9 bay noqonaysaa markaan trade-ka kala galayo. ila soco saan u macaashi doono. suuqa weli waa ku jiraa, waxaan galayaa GBP CAD ama euro iyo AUD. okay aan gala bal hadda ka soo qaad GBP iyo GBY. waa trade-ka labaad aan gala. haddaan khasaaro waa khasaare, haddaan faa'iidana waan faa'iiday. waxaan ku galayaa supply conform, halkaas mar walba waa la weydiinayaa yes. hadaan lacag kala faa'iidadeeda ku darsoomaysaa ila soo. haddaan khasaarana khasaare lacagteeda ka go'aysaa $1. trade-kan saan u galay waad arki doontaan iyo trade-kii horeba. haddaan khasaaro xataa ma kala jecli, waayo macaash ayaan hadda soo qaatay, sentiye yar ayaan khasaarayaa. haddaan faa'iidana waan faa'iidayba. time framekeena waxaan ka dhiganay 2 minutes. lacagta waa soo analyze garaynay. suuqa real baan ugu jirnaa, suuqa uguma jirno diima ahaan. ila soo caardayow, suuqa diima haddaa kusoo gashaan oo diima ahaan baa ugu jirtaa marka faa'iidada way idin taaba, khasaarihii idima taabanaysa. laakiin tan waa real life way, khasaarihii wuuna taabanaya. haddaan wax yar khasaarno lacag baa naga go'aysa. la soco time history trendkeena waa fiirinaynaa, waa new baa laga soo bilaabaya. lacagta ugu horreysaan ku guulaysano 0.7 sababto waxaan hadda trending history waxaa new looga bilaabaya, lacagta real ayaa lagu bilaabaya. haddaan khasaaro hadda waxaan khasaaray $1, waa khasaaraan ila imaaday $1. markaa minus baan galay. hadda saan haddana macaash kale u qaata arag, hal faa'iida iyo hal khasaare ayaan kaga jiraa halkan. okay orderkan waa iska saxayaa. halkan order baan rabaa inaan markaan sameynayo suuqa ayaan aad iyo aad isaga fiirinayaa. halkaa ila socda. hadda haddii khasaare ay noqoto hataa 30 senti oo khasaare ku jira, lacag badan weli ma khasaarin. ila soco suuqa kor buu aadayaa, waa ku gelayaa marka buy conform. suuqa waxaan analyze gareeyay inuu kor aadi doono. halkaa profit waxaan rabaa hal inaan helo 0.7. ila soco markaa maya 83 baan helayaa markaan. khasaarahayguna waa $1 amountiga. okay halkan waxaa ka fiirin doontaan trending history, hal mar oo khasaaraha, hal mar oo faa'iida. waana akoonka waa real akoon. $10 baan ku shubnay. ardayda tijaabada $10 loogu talagalay inay arkaan selay baysaan ugu galayno. waa trade-kii saddexaad intaan lacagta ku shubay. la soco waayo hal trade waan ku faa'iiday, hal trade waan ku khasaaray. boqolkiiba 83 senti ayaan faa'iiday. haddaan faa'iido dii kalena $1 aan sii khasaarayaa. caawa bisha waa 9. bishaan ku jirno waa bishii 6aad 2020. haddii suuq khasaaro ila gala ogow $1 baan khasaarayaa. haddaan faa'iidana 83 senti oo macaasha new option baan galay. lacagtan waa lacag real life aan ugu talagalay ardayda
inay ku arkaan wax badan baa akoon diima aragteen hadda suuqa waxaan ka mid nahay dadka traderska saxda ah macnaha training historygan lacag badan baa awal shaqeynay waana laga tirtiray real account baana looga bilaabay real account waa lacagtaada dhabta markaa ku shaqeynayso sarifka dhabta oo internetkan ku jirnaa sarifka dhabta waxaan ka faa'iidnana waa ila arki doontaan hadda lacagtan faa'iida ayaan helayaa oo ii dhicira waa kaa ii dhacday faa'iidadaasi waa kaa 82 senti marka $10.52 baan haystaa $10 baan suuqa ku bilaabay deposit inaan dhigto laba jeer aan faa'iiday caawo hal marna waan khasaarahan iska ilaalinaya ila socda hadda anaa faa'iido qabo practice account waa kan intaas soo ah waa casharka noogu dambeysay account really baan furanay really geeni baan ku shaqaysanaynaa marka suuqa caadi baan ka shaqaysanaynaa haddaan rabno shaqo ma aadayno annagoo gurigeena joogna ayaan lacag shaqaysanayno hadalkaasi sidee baan ku iri haddii la doono shaqadiina tegi kartaan haddaan doonto ma shaqo tegaysaan oo waxaa ka shaqaysanaysaan suuqani xorta ah waxa aan shaqaysanayo waa lacag live ay la soco ma aha been waxa ila faa'iido dadka ila faa'iido waa kuwana wadamada kala joogaan annaga Soomaaliya aan joognaa Soomaaliya dad joogo ila faa'iido baa jira mid baa wuxuu faa'iido asoo Soomaaliya joogo $1.52 meesha 83 cent ka faa'iidnay Andreas wuxuu faa'iido $1.52 kan wuxuu faa'iidaysna $1.52 show leaders kan hogaaminayo caawa faa'iidadii Brazilian baa hogaaminaya $76 buu faa'iiday mid kale oo ka sii heer sareeya $94 buu faa'iiday saasaa loo kala heer sareeyaa la soco marka halkaas kugu soo bandhigaya adiga waa iska raadin kartaa halkan haddaad ku qorto magacaaga oo aad kaga jirto kanaalka Maxamed Maxamuud baan kaga jiraa Maxamed Maxamuud haddaan ku qoro real account buu leeyahay halkan waan kasoo helaysaa trade-ku sameeyay inta trade uu sameeyay oo markii lacagta live ku dhigtay weeye halkan suuqaana waxaan soo analyze gareynayaa GBP iyo confirm baan dhahayaa lacagtaas waa galay waxaan faa'iiday 82 cent haddii aan khasaarayna waa $1 khasaara euro USD baan ku jiraa waa lacagta favorite-kayga ah favorite-kayga halka calaamadda xidigta ii saaran waxaan macaashaa 82 cent haddaan faa'iido haddii aan khasaarana waa $1 la soco lacagtan aan haystana waa intaan hadda weli anaa macaash haysto hal mar oo khasaare $1 kaliya aan galay ila soco markaas si haddii khasaare kale u yimaadana waa arkeynaa waa maareyn karnaa waa $1 kaliya khasaareena faa'iidadeena waa intaas marka ardayda loogu talagalay real account inay samaysan karaan saa usoo samaysanay cashirkii aan ka diyaariyey baa arki doontaan real account-ka real account cashirkii aan ka diyaariyeyna waa soo gelinayaa haddaan soo hagaajinaya cashirka waa soo jarjaraya oo idiin soo gelinayaa baasaboorkaygii waxaa la weydiiyey masterka visit cardkaygii oon kusoo xiray kadibna baasaboorka ayaa la weydiiyey baasaboorkii baan u diray baasaboorkii markaan u diray waxaa kaloo la weydiiyey mobile kaarkayga kaar numberkayga waan siiyey kadib kaar numberkayga markii aan siiyey verification code bay soo direen codekaasaan kusoo galay waa sida adiga waxay weydiinayaan kaar mobilekaaga baasaboorkaaga waxaasoo dhan way ku weydiinayaan identity kaaga bay ku leeyihiin marka waxaan khasaarayaa $1 suuqa aan buy ku galay sell buu noqday ila soco marka intaan khasaaray kilos halkaan aan soo qabanayaa marka laba jeer oo khasaare laba jeer oo faa'iido haysanaa ila soco okay suuqa mar kale ayaan galayaa oo waan iska hubiyey markaan iska hubiyey kadib isla sidii hadda kale ku galayaa buy maadaama hadda sell uu noqday okay la soco waan ka gaarsiiyey trade-ka markaan hubsaday isla markiiba waan galay halkaan laba jeer oo khasaare iyo laba jeer oo faa'iido aan haystaa haddaan faa'iido kale ku daro waa faa'iido haddii aan khasaare keenana waan arkayaa suuqa taxadir badan baan uga jiraa anoo hadda platformkaygii iska soo saxay oo IQ optionkii ku shubtay account realia lacag fiican baan helay hadda waa faa'iidadii baa ii dhow inaan faa'iido oo ii dhow marka 3 jeer baan faa'iido laba jeer aan khasaare suuqaani qofkii ku yiraahdo khasaare ma laha been buu kuu sheegay marka aad inaad uga fikir $10 aan dhigtay weli lacag baa ii sii saaran faa'iidaan sii wataa $10 caawa aan ku bilaabay marka cashirkeena caawa intaas ku ekaanaya inta cashir kale aan isaga imaanayna sidaa darteed tii amaano Allah wassalaamu calaykum